بريها سود ديننا يانا هدي لا سود داي ولا على علي ورينا نكو على علي بري ارغداسي way burtay waxayna ku burtay waxa weeyaan waa laga daba hadlay waxa lagu yiri hawee oo shiray wuxuu shir ku gaaray iyo madaxweynihiiba arintaasi waxay u taalaa Soomaaliland waayo erga waxaan arki jiray dhex timaado oo meel fadhiisatay wali ma lu arag erga soo socoto dhinac u timaada oo kula soo shirtay waliba adana garowe oo waliba hadana laascaano timaada waxaan leeyahay waxba soo lagoyna Soomaaliland waxba iima yaalaan waxa weey ergadiinaasina way burtay tolka go'aan buu ka daba yiri go'aan ka raac oo noo iman ergadiina saasay ka burtay buu waxa weey idinka iyagu ba idin yeedhay شيف عاقلك قبلة قلبيتك الصومالي لان شيف عاقل عمر علي فارح عوفلي عمبي وما انت ورمينت قرقة كلها اللي مقالة قبلية عاصمة قبل كاياكا اللي دوركا من حدقويك كل يهين نبضا يود الشركة ومضا سيدوك روحا وفريق رولو دري قد للشاقنا يسا دحدحادين تحالات الله تعرض كسعة الصومال لأننا هين قد دحدحادين يهين قد وسع تقاب كغرميد ميدوبا وكلاي خاصنا اي تايري ماشا كبحين الرمي دقن كي اي سعودين سيدوك روحا وقد سكوت مامينا كبحين حيرك دحدحادين تا taasina ay dhinac la safdeen taasina aanay ahayn dhexdhexaadin ay tahay gudi dhinac ka raran waxaana xukuumadda Soomaaliland hogaamiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in gudidaasi halka ay joogan laga celiyo maadaama ay ka baxeen xeerkii dhexdhexaadinta oo ay dhinac la safdeen isla markaasina ay guud ahaanba Soomaaliland ay soo gelin gudidaasi oo ay halkaas ka noqdaan isla markaasina ay la mowqif noqdaan talkooda sheegay in arrintan ay u taalo Soomaaliland dadku waxa weeyaan daljir iyo dunyajir baa la yiraahdaa haddii daljirku waxa weeyaan ninka ciidanka ee dalka loo diray hareerihiisa ee ilaalinaya xuduudaha iyo bulshada ilaalinaya daljir baa la yiraahdaa ama ninka u soo halgamay oo kala daljir la yiraahdaa daljirna waxa maxay dunyajirna waa ninka hantidiisa yar oo ku eegay yaqaan oo dunyadiisa uu soo eegtaa daljir waxa la yiraahdaa waa ninka duub kale wuxuu dadku ilaaliyaa wuxuu ku ilaaliyaa inaanay dhibaato ku iman in wax kasta oo dhaca oo wax ka qabto oo uu nabadgeliyo ku soo dabaalo taasina may dhicin nabadoonnada marka laga hadlayo saddex baa la loo qaybiyaa sarlabood sababa iyo sabaga sababaagi waa ninkii siyaasiga ahaa waxba lanaga qaatay dagaalama lahaa ummadda kicinayay waa sababa sarlaboodna waa dhalinyartii dagaalamaysay ummadda حبد ريسي اللي وريسي يوح ما قرأت دخل إلى ويان سر لبود بلد هذا سبقاوان نكى عاقل كها الصو وقد بينت إيمانية أرنادا كالفريسينية عاقل كها يضوب كها وحصور ري مانتا هل كي سبباقي بو صوق علي سبقاقي من هدو سبقاقي صوق علينا أرنتي ميل لقى قبطها يعد له حاله ويا نيكي wax suuq laha ila la xaajo laha ya gacantiisa maanta hawshii dhiigi galay oo le dagaalada leh dibtii halkaas ma ka timiday marka hawshii dhaqankii meesha way ka wada baxday waayahay marka halka marayso arintii waxa soo dhaxgalay niman ila ergo xeer bay leedahay hadii xeerka ergadu ay dhaaftan erga maaha ergada xeerkeedu waa inay soo socoto meel dhexe fadhiisato labada dhinac ay mar u wada yeerato mar ay la wada hadasho mar ay wax wada weydiiso mar ay israacaan mar ay meesha wada tagayaan bay wada socdo labada dhinac ay dhex joogsato erga waa gareeqaan oo kale ergo waxa weeyaan ninkii ka taqaadaya ama arrintani gunteeda gaadhay weeyaan ee xalkeedii waxa timiday ergo haddaba ergada maanta timiday erga ma ahayn ma waa jabcada qorma ka dhaxaysa ee eegaysay maxay burburada dhacay iyo waxa ka sheekeynaysa dokumentiyada duubaysa la sheegi jiray weeyama waayo erga waxaan arki jiray dhex timaado oo meel fadhiisatay wali ma lu arag erga soo socoto dhinac u timaada oo kula soo shirtay waliba adana garowe oo waliba hadana laascaano timaada oo iyadoo dhinacii kala la kulmin hadana socoto oo tagta maxay ahayd meeshii la isku leeyahay oo hadana tagta aqaladii burbursana oo iyadu uu talaabo iska dhinac la socota ergada waxa la yiraahdaa erga dhinac ka raran baa la yiraahdaa erga dhinac ka raran yaa la yiraahdaa waa xeerkeeda ergana ma dhinac bay ka rarantay ergaas way burtay waxay ku burtay qodobadaas ay ku burtay
waxa weeyaan iyo halkii ay dhex ka iman lahayd iyo ay dhinac martay qodob kalena waa bu jiraa oo ergadaa burinaya qodobka kalena waxa weeyaan tolkiyo ugaasiyada ugaas maxamuud iyo way ka daba hadleen hawiye arrintaasi iskuma raacsanin bay yidhaahdeen arrinta Somaliland waxa arrinta dhulbaahanta ee laascaanood waxay u taallaa Somaliland bay yidhaahdeen hadalkaa maadaama tolka daba yidhi jaamac garaad Ismaaciil ayaantii uu sharayay Suldaan Daa'uud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir Duray wuxuu ku yiri tolka go'aan buu ka daba yidhi go'aanka raac oo hanoo iman ergadina saasay kaga burtay buu ku yiri waa teedii tan maanta ergadaasi way burtay waxayna ku burtay waxa weeyaan waa laga daba hadlay waxa lagu yiri hawee oo shiray wuxuu shir ku gaaray iyo madaxweynihiiba arrintaasi waxay u taallaa Somaliland sida waxa limayso maadaama ay sidaa yidhaahdeen tolkii iyo hawiye iyo jareer iyo tolkii iyo madaxweyne say yidhaahdeen sidaasay kaga burtay oo wax maandeeda oo ka haystaa tolkiina ma jirto qodobka loo ku burtay markii uu hadlayay ninka ugaaskii wuxuu yiri Somaliland iyo laascaanood buu laascaanood min Somaliland hay waxa ka muuqata go'aankii uu oran lahaa buu sii sheegay waxyaalaha buriyo ergada iyo kamid tahay taasina way ku burtay waxaan leeyahay waxba soo lagoyna Somaliland waxba iima yaalaan waxa weey ergadiinaasina way burtay tolkii la mowqif noqda madaxweynaha Soomaaliya ee hadlay la mowqif noqda arrinta laascaanood waxay u taallaa Somaliland arrinta laascaanood waxay u taallaa Somaliland hawiyo walaalahayo waa dad aan wada dhalanay jareerwiyo walaalahayo waa dad Soomaaliya wada dhalanay laakiin xeer baa wax kasta kala saara haddii aad leedahay waxna kugu xiga sax baa tahay laakiin xeerkiiba jabisay ergada xeerkeedii baa jabisay sidaa daraadeed way burtay ergaasi waxaad iska dhigtay nin hay'ada oo jimcada qurbaan ka dhaxayso oo kala ah oo isagu qolada u yeedhatay dooba idin yeedhay ma qooday iyagu aad la socotaan ko haddana dhinacii kale in arag durbaad hawlo dhex gasheen waxa way idinka iyagu baa idin yeedhay arrintaasina waa arrin waxa way idiga burtay xeerkii dhaxeeyo way idinka ku raacinay waxa weeyaan ergadaasi waxbaan erganahay leh way burtay sidii ay doorkii hore loo soo galay laascaanood sida qalka loo soo galay yan Somaliland si qaado loo soo galay ergadaasi barta ay joogto ha laga celiyo wax xeero oo ay kugu leeyihiin iyo wax xeero oo ay yaala oo ay nagu leeyihiin ma jirto xeerkoodina saas ku buray bariha soo daynina iyana hadii la soo daayo waa laga calaacali wariyana ku calaacalin bari xeer u yaala ma jiro halka ay joogto iyay ku burtay ha ku noqoto haddaanu xeer yaqaankii Somaliland nahay iyo uqaashi gobolka ee xeerka u hayay wax xeer oo erga oo meesha yaala ma jirto madaxweyne waxaan ku reenayaa soo galin arrintaasi halka ku celi madaxweynaha waxa leeyahay saddex weeyaan dadku arrimuhu fulo baxa geesina u baxa laakiin berber ma baxo go'aan baa ku yaala Allah subhanahu ama ku qabata ama ka soo baxdo oo kaya ku yaala anu taban waana qoorani yalla xaji telefishinka qaranka Gabiley